السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال soo dhawaada meel kasta dunida daafaheeda iyo dacaladeeda baad ka joogtaan. Soo dhawaada Sarmad Construction Company. Maanta waxaan idiin soo bandhigaynaa warbixin kooban oo ku saabsan qaar ka mid ah mashruucyada hadda socda ee shirkadu ka fulinayso gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda. Waxaan joognaa waa mid ka mid ah dhismayaasha ay qurxisay qaabeysay misana ay wado dhismaheedii ay wado shirkadeena Sarmad Construction Company. Dhismahan oo ku yaala degmada Ibrahim Koodbur xaafadda Jigjigeer ay dhisayso ayaa ah dhismaha nooca loo yaqaano G+1ka kaas oo cabirkiisu yahay 36 iyo sidoo kale 48. waxaan eegi doonaa hadaba gurigan ay xaqiisa sare guri wali la dhisay xaqiisa sare maanaan kurino shaqadu ku socoto wali soo raaci doonaa dhakadiisa sare iskula bixi doonaa. waxaan dhex mushaaxaynaa waa shaqadeeni maalinlaha ahayd ee mid u booqanaynay aynu dul istaagaynay shaqooyinka ka socda ee dhismayaasha ay hirgelisay shirkadeena Sarmad Construction Company. gurigan taagano noociisa loo yaqaano G+1ka kaas oo ku yaala xaafadda Jigjigeer ayaa waxa ka socda shaqada loo yaqaano talbiista ama furniture-ka. sidoo kale iyaduna halka waxa gabagabo ku dhow waa barkadii gurigu uu yeelanayay gurigan oo xaabxaabkii maraya insha Allah waxaan ku soo noqon doonaa marka guriga la dhameystiro. aynu ku jirnaa ama aynu ku sugannahay waa goobaheeni shaqada ee shirkadda Sarmad Construction ay ka dhisato sida maalinlaha ah magaalada. dhismahan aynu joognaa waa dhismaha cusub ee laga dhisayo iskuulka Irshaad Secondary School. dhismahan oo maanta shaqada ka socota ay tahay nooca loo yaqaan footinka ama calaamadaynta. dhismahan ayaa waxa uu ku kacay cabar ah 1100 mitir square waana nooca loo yaqaano G+1. waa kuwan injineerada ku hawlan dhismaha dugsiga Irshaad Secondary School iyaga oo markaana sameynaya cabirkii waxaan joognaa mid ka mid ah guryaha ay qurxisay qaabeysay mid misana dhistay shirkadda Sarmad Construction Company. gurigan oo cabirkiisu yahay 24 iyo 12 oo nooca loo yaqaan bangalada oo ku sii dhow xaabxaabkii ama dhameystirkii isagoo socda rinjigiisii aakhirka ahaa. waxaan dul taaganahay mid ka mid ah dhismayaasha ay gacanta ku hayso Sarmad Construction Company. dhismahan oo ah basement plus ground oo ah 4 floors. hadaba designkii guriga oo gacanta ku hayno waa kan halka uu maray maanta waxa weeyaan waa second floor ka weeyaan shaqada ka socotaana waxa weeyaan waa shaqadii kaabadaha oo darkaysan nabrihii loo taagay waa dhismo loogu talagalay moolahan loogu talagalay waxaanu ku yaalaa oo laga dhisay oo laga hirgeliyay waa bartamaha suuqa Hargeysa. waxaan taaganay mid ka mid ah guryaha hadda la bilaabayo sidaad aragtaan waxa gadaasheeda taagan ama xagga dambe ga taagan waa cagaftii oo shaqadeedii wadata iyo sidoo kale shaqaalaha oo iyaguna qaybta footinka ama xarkaha la xirxiray cabrada dhismahan oo noqon doono dhismo G+1 kuna yaala xaafadda calaamadda. mid ka mid ah guryaha ay dhistay misana nashqadeysay misana binaysay waliba dhismihiisu waliba oo sii socdo la marayo ee qaybihii ugu dambeysay shirkadda Sarmad Construction Company. gurigan oo ku yaala degmada Maxamed Mooge waa 24 iyo 12 mitir nooca loo yaqaan G+1ka.
shirkadeena ayaa markasta waxay diyaar u tahay raaligelinta macaamiisheeda iyo sidoo kale qof kastaba oo daneynaya in ay u dhisto gurigeeda riyada ah Sarmad Construction Company waxaan leenahay waa shirkadeena guud ahaanteeba waa shirkadeena markasta waxaan diyaar u nahay soo dhaweyntiina ku soo dhawaada Sarmad Construction Company